kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idinkiinba kula soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee qubanaha asal TV oo ah barnaamijkan idinkugu soo gudbin dhacdooyinka ugu waaweyn ee gudaha dalka iyo weliba caalamka. barnaamijka toddobaadkan qodobadaan idinkugu hayna waxaa qayb ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo amaro adag duldhigtay ciidanka Kenyaanka ah ee dhawaan duqeymaha la sheegay in ay ku garaacday qaybo ka mid ah Soomaaliya. waxay sidoo kale dowladdu ay cambaaraysay duqeymahaasi iyadoo ka jawaab celisay waalidiin banaanbaxyo ka dhigay Muqdisho dalbanayana in dhalinyaro ay dhaleen oo la sheegay in dalka Eritrea tababar ciidan loogu qaaday dalka dib loogu soo celiyo. qodobada sidoo kale barnaamijka toddobaadkan idinkugu hayna waxaa qayb ka ah xanuunka COVID-19 oo guud ahaan Soomaaliya laga waayay kadib markii wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ay sidaasi ay soo gudbisay. Kenya waxa ay mar kale fasaxday duulimaadkii Soomaaliya ka soo degi jiray kana duuli jiray iyadoo sidoo kalena sheegtay muddo 3 bilood kadib in duulimaadada Soomaaliya ka imaanaya ay Kenya soo gaari karaan. barnaamijka qodobadaasi waliba qodobadii kale waqtigu inoo saamaxay aan idinkugu soo gudbin doonaa. waxaan idinla socodsiinaya anigoo Aadan Xuseen Daawud. waa mar kale barnaamijka toddobaadka iyo waliba qubnaha Asal TV. وهجاك بالمركنا أي نسيان بقابنا برامجك دولة فدرالية الصومالية وحي تدبعت كان أي لها الشور باهنتا إيضا فافاين كبحسي إن مركن أي دولة أدو القادم كريم دو قيمها أن حد قلهين عيدك كيان كأقيب تكاو القلق النبطلالين تميدو غافريكا أميسوم أي كي سنة ينقذها الدولة الصومالية وزيرك وزارة ورفافنتا الصومالية عثمان أبو كردوبة وحاو شيغي إن دولة الصومالية ay ku amrayso ciidanka Kenyaanka hadii ay doonayaan inay howlgal ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya ay ku soo wargeliyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba taliska nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. waxa uu sidoo kale wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube uu si weyn u dhaleeceeyay duqeymihii ay ciidanka Kenya ay ku garaaceen qaybo ka mid ah gobolka Gedo isagoo sidoo kalena sheegay in duqeymahaasi ay u arkayaan inay yihiin kuwa aan markaan soo kordhinaynin natiijo wanaagsan oo uu kala jeeday in dadka rayidka ay Kenya bartilmaameysatay. xukuumad ahaan oo aan ugu faahfaahino qodobka koowaad waxa weeye toddobaadkan sidii awgeedeen waxaa khasaare xun ka dhacay ciidamada Kenya ee cirku ay geysteen shacab Soomaaliyeed ku dhibaateeyeen deegaanada gobolka Gedo Caalwa. khasaare runtii shacab baa dhacay arrintaas inaanu cambaarayno waraaqo horena waa ka qoray waana ka xunnahay horena waa uga hadalnay haddana inaanu ku celino runtii khasaaro wuxuu ahaa khasaare isugu jira naf iyo maal iyo xadgudub intaba waxaa ku naf waayey dad shacab ah hooyo iyo wiilkeedii yaraa 6 carruur oo kale ayaa ku dhaawacmay guryo badan oo ilaa 8-9 guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey hantidii shirkadihii telecommunicationka ee ceel waaqay eriyadaas mar kale haddana Somtal iyo Hormuud baa lagu burburiyey. waxaas oo dhan runtii waa xadgudub waana cambaaraynayna. waxaan rabnaa halkan aan uga sheegno dowladda Kenya maanta laga bilaabo ciidamada cirka Kenya duqeyn kasta ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo aan ku soo wargelin dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliska guud ee AMISOM ma fulin karaan wax duqeymo kuma soo xadgudbi karaan xuduudda. taas wata magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday waxaa ka mid ah Caalwaaq, waxaa ka mid ah Caalcadde, waxaa ka mid ah Cawsqurun, waxaa ka mid ah Dhadhaable. xuduudaha waa garanaysaa magaalooyinkaas u dhow gobolka Gedo xuduudaha u dhow oo dhan ayaa si xun loo waxyeelay. aad baan u cambaaraynayna waana ka xunnahay waana u tacsiyadeynayna intii gooriyootay dhaawiciina wuxuu inoo jeefaa carruurtii isbitaalada ilaahay inuu boogeedhayo ayaan ilaahay weydiinaya. haddaba waxa uu wasiirku uu sidoo kale ka jawaab celiyay banaanbax ay toddobaadkan Muqdisho ay ka dhigeen waalidiin isugu jiray rag iyo dumar oo dalbaday in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalka dib ugu soo celiyo dhalinyaro la sheegay in dalka Eritrea loogu qaaday tababar ciidan isla markaana muddo 2 sano aan wax war ay ka helin dhalinyaradaasi. qodobka labaad waxa weeye arrinta ciidamada Soomaaliyeed
ee dalalka dibadda tababarka ugu maqan sida la wada socotaan dunida dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa qaarna dalka dibaddiisa ayaa tababar loogu diraa intii dowlad dhiska Soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaasi saas u socdo dalal badan ayaa ciidamo inoo tababaray waynu uga mahad celinaynaa qaarna ilaa hadda inoo tababaraan qaarna mustaqbalkeenu rajaynayna inay inoo tababari doonaan laakiin waxaad moodaa in la siyaasadaynayo ciidamada ku maqan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa waa qof hora majuura qaangaara go'aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo qof waliba isaga ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho dhalinyarada go'aanka qaadatay waa ku hambalyeynaa inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda laga sheekeynayana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ayuun bay lamid arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamo inoogu maqan yihiin bay Eritrea ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qayb bay ka yihiin wadamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaan ma jiro laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto waa ilaahay mahadi bari dhaweydun bay ahayd markii la isku haystay xeebta Liido laha ciidamada Ethiopia xeebta Liido maraya maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada Soomaaliya aanay Tigray qabsan ma jirto ciidamada Ethiopia waa ku filan yihiin dalkooda awood ahaan iyo tiro ahaanba way ku filan yihiin sabab ay Soomaaliya ciidamada Tigray ugu dirtaan ma jirto taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo wama markii koowaad aynu warkaa maqalay waa markii sagaalaad waa markii tobnaad markastana waxay noqotaa waxba kama jiraan oo waa la ogaadaa sababta ay dadku waa human being waa bini aadam siyaasiyiinta dunidu kama hadlaan tababarada ciidamadooda sababta waa sir qaran nooca loo tababarayo inta loo tababarayo qaabka loo tababarayo waxay ku jirtaa xogta dalka ee lama taabtanka laakiin siyaasiyiinteenu waxaad moodaa inay ajanda doorasho ka dhigteen campaign doorasho ka dhigteen oo ay ku soo celcelinayaan sacabka wala wuxuu arkay wala habeenkii sacab tumaysa marka wuxuu yiri sacabka maxaa habeenkii loo tumaa hadaan xeeladi ku jirin arrimaha dhacaya carruurta la leynayo xadgudubyada Kenya weli ma aragtaan hal siyaasi oo ka hadlaya hal siyaasi oo leh maxay u dhimanayaan carruurta maxaa loo dhaawacaya maxaa loo duqeynaya maxaa loo burburinaya hormuud laga rabaa maalin walba maxaa sababta loo ma jiro ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan oo la yaqaano oo tababarkoodiina dhamaado gabagabayba yahay ayaa maalin walba laga hadlayaa si looga mashquuliyo shacabka Soomaaliyeed hagardaamada cadow qadaha hore ee barnaamijka qubanaha asal TV ayaad la socotaan dowladda Kenya waxa ay shaaca ka qaaday in guud ahaanba ay markaa fasaxday duulimaatadii Soomaaliya iyo Kenya isaga kala gooshayay iyaduna muddo 3 bilood kadib ay Kenya go'aankan ay qaadatay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay qaadatay go'aankan iyadoo la qiimeynayo duulimaatadii waliba xiriirka diblomaasiyadda Kenya waxay war-saxaafadeedkeeda ay ku soo hadal qaaday fasaxitaanka duulimaatada ee Kenya iyo Soomaaliya in ay ka dambeysay kadib markii wada xaajood Kenya iyo Soomaaliya laga dhaxsamay inkastoo aanay Kenya si toos ah aanay shaac uga qaadin cidda samaysay wada xaajoodka ama wada hadalka u dhaxeeyay dowladaha Kenya iyo waliba Soomaaliya
waxaana war-saxaafadeedka Kenya ay soo saartay uu imaanayaa iyadoo xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya saddexdii bilood ee la soo dhaafayba uu muuqday mid gaabad ah marka loo eego xiriirkii diblomaasiyadda ee markaas soo jireenka ahaa oo labada dowladoodna xurgufyo siyaasadeed ay soo kala dhexgaleen hab ugu badnaatee Soomaaliya oo sheegtay in Kenya ay faragelin dhanka siyaasadda ah ay gudaha Soomaaliya ay ka geysanaysay. وهاجاك بالمركنا أينو إغنو وزارة عافمات كصوماليا وحا أي شاع كقاعدة إن جود هان حنون ككوف السجال يطبن جودها صوماليا لجواي تضرب بقول إيه ولبا تضبعات أوف أيال المرسية خبنت أدي عافمات كحنون ككوف السجال يطبن وحنا تاسي كده أنت إن وزارة دو أي موجنا يسوع إن جود هان ذلك خبن لجسم يي حنون كي لجواي intaana u gudbin warbixinta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ay soo gudbisay maamul goboleedka Hirshabelle ayaa iyagu sidoo kale deegaanada ka tirsan sida Hiiraan iyo waliba Shabeellaha Dhexe waxaa hore looga muujiyay in xanuunka COVID-19 laga waayay haddaba marka loo eego 24 saac ee la soo dhaafay 770 ruux oo hubin caafimaad lagu sameeyay gabi ahaan waa laga waayay 21 qofood ayaa wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in ay ka bogsadeen xanuunka COVID-19 marka waa eega tirada guud ee xanuunka uu soo dhintay ee Soomaaliya waa 14,797 ruux waxaana guud ahaan aad moodaa in tiradaasi ay tahay tir aad u xaddi badan wasaaradda caafimaadkana waxa ay soo gudbinayso warbixino joogto ah oo ay ku dul istaagaysay amaba ay ku hubinaysay mar waliba xaaladda caafimaad ee bulshada Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya warkaan ay ka dhawaajisay ee ah in xanuunka COVID-19 laga waayo Soomaaliya waxa ay ka dhigan tahay warkaan ay ka dhawaajisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxa ay ka dhigan tahay in bulshada Soomaaliyeed ay tani farxad weyn ay u tahay iyadoo sidoo kale aan uga rajaynayno dunida inteeda kale insha Allah in laga waayo xanuunka COVID-19 oo saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay nolosha bulsho waliba ee caalamka dushiisa aynu ku noolnahay guud ahaan qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijka qubnaha Asal TV ee toddobaadkan inta aynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga وتبيها برامج كان آدم حسين نبت قليل